yiraahdaa magacayga Cabdullaahi Jaamac Xuseen waxaan ahay nin muddo badan xanuunsanaa ilaa iyo 30 sano ku dhawaad taariikhda yaan xanuunsanahay ilaahay nasrigiisa waxaan ahay nin mayar qaba oo hadda qaarka hore gacmahu way ii shaqaynayaan maskaxda iyo carabka iyo maqalkuna way ii shaqaynayaan laakiin intaas wixii ka dambeeya oo ayaguna dib la'ayn qaybta qaarka dambe ugu badan yahay waxaan ka ahay nin naafa ah oo qallalan taariikhda soo sheegay baana xanuunkaas haleelay haba yaraatee wax la yiraahdo dhakhtar lama aanan kulmin marnana allaha ka dhigay inta badan noloshayda sidaas u xanuunsan waxaan ku soo qaatay meesha la yiraahdo miyiga waxaa la igu xambaari jiray awrka geel oo reer miyiga Soomaaliya rarto muddo hadda 9 sano laga joogo waxaa la i keenay degmadan hadda aan joogo oo Balanballe sababtii la igu keenana waxay ahayd hal lagu xafidiyo xanaanaha loo keeno midna ma ahayn waxay ahayd waxa iga baqtiyay rabtigii la isaari jiray sida la aligeed qaadi waa anigoo ayaa Balanballe la i keenay intii ka dambeysay iyada ayaan nolosheeda ku soo qaatay ilaa iyo hadeer ma had ilaahay muddo hadda laga joogo 6 sano horteed ilaahay qadarkiisa iyo aqbalkiisa anigoo sidaas xanuuna sidaas ah dhaqaale iyo hadda xanaano kaleetana aan qabin ayaa ilaahay amaaradiisa waxaan la kulmay inaan guursado waxaa ii joogta ilmo hadda 5 ah ilmahaas ilaahay baa isiiyay anigaana aabahood ah haba yaraatee waxa hantida la yiraahdo mawda ku jirta nolosha ku jirtay waxba kama lihi nolosha aan ku noolahay ilaahay miduu asagu qadaray weeye laakiin waxaan ku noolahay dad islaama ama hadda ehel aan tira badnayn ah xuskiis marka la isku soo duubo xoog kama shaqeeyo xolaan horay u kaydiyayna ma biisho intaana mas'uul ilaahay baa iga dhigay waxaa ka mid ah dad kale oo ilaa 2 ruux meelahaas ah oo aniga iyo aabahay on haata maskaxda ka shaqaynayn iyo carabka oo aad la kulmi doonto intaba horena noo sidi jiray haatana nasida family dhan oo ilaa 10 ruux meelahaas ahaanahay noloshuna sida caynkaas ayay naga tahay markii la isku soo duubo waxaan ku noolnahay waa dadkaas ama ehelka tirada yar ah ama islaamnimadu ay ku saxan tahay gacantaaga wuxuu gacanta nooga soo taagay weeye waxa noloshanaduna hadda ay tahay kalleena ilaahay baa ninka leeyahay nagu hayo oo xilligii asagu idma horteedna awal baysa naga baxayna noloshana isaga ayaa ka faala qaaday gacalkay soo booqdayo xaaladaydu sida cayntaas weeye wixii kale hadda aad is-aashana wuxuun baan kaga dari karaa waan gartay marka waxaad nooga warantaa xanuunkan intii uu ku hayay ma la xiriirtay wax dhaqaatiira ama xiriir ma la sameeyeen haddii ehel noqoto ama qaraabo noqoto sidii bal xanuunkan loo daweyn lahaa oo qaab nolosha kamid wuxuu looga qaban lahaa maya waxba dhakhtar la yiraahdo haba yaraatee lama aanan kulmin haddii hadda aan wax kaaga sii sheego xanuunkaas uu ii hayo ilaa 29 sano oo aan waxba ka dhimanayn baan xanuunka la jiifay xanuunku markii uu dhacay kaar badan buu igu qabtay waan dhacay lagu isku kay xirmeen sidii baan ku naafooday waan sidii baan ninka leeyahay yaan ku naafooday waan tagnahay waxaan dareemayaa markaa waligayna dareensanaa jirku inuusan wax dhintay usan ahayn wax yar oo xasharaado hadday ii soo gashay bugasha matalan meesha ugu dambaysa oo cagaha ah joodarigan ku jiifa haddii wax yar xasharaado taabto dareenka lagu si buuxda 100% ayuu u dareemayaa xanuunkaas qaybtaas markuu soo roogay ka gadaal hadda wuxuu iiga faafayaa intii sanada ah oo marmar gacmaha ay dhacayaan qaarkaas horeeto luqunta indhaha mararka qaarkood laakiin mahad ilaahay haatan meel hadda ayaga hawlgabuhu dhaawacyabaha ku jireen xanuunkuna ku soconaya ma ay ku jirto waxaan isleeyahay wax caam ama khaas wax ama aqoon kula kaashada ama hanti ku galiya haddii aad hesho waxaan isleeyahay oo lagu haaso caynta uma ay bixin laf jabtaba inta qaloocataa la burburiyaa ay farsamana helaan
wax maalgelin iyo kharash ku sameeyana ay helaan. waxaan qabaa in aan ahaan lahaa naafada qaybta ugu xooga badan. matalan waxaan kuu sheegayaa anoo saa hadda ninka la yiraahdo usoo naafo ahaa 2 nin oo aniga dheer lagu hadday itaagto lugta bidixda waan ku istaagayaa, midda kalena xoog baan ugu istaagayaa, laakiin wax yar baa fayshu roorsantaa ma garad. marka waxaan dareemayaa maadaama xooga isu taagaysa iyada oo isku taagan oo togan ashaa isugu taagaya si xoog ah, ama hadda wixii gadaal iga soo galaba aan xoog ugu riixi karo anigoo saa u jiifo. waxaan is leeyahay hadday wax un farsamo ah helaan hadday helaan naafo 90% midda ugu dheeraysa inaan noqon lahaa. sidaas baan aaminsanahay. waan gartay. marka wax jaaliyada oo kula soo xiriiray ama xiriir kula sameeyay oo wali wax ku qabtay ma jiraan? maya ma ay jiraanin. ninka la yiraahdo waxaan la kulmay oo meesha aan joogo iigu yimid in badan ilaa 13 ruux oo adigu adan ku jirin ama adinku. dadkaas inta badan dad gobollo ka soo gooshay arda qurbahana ka yimid sida iigu warbixiyeen, ama dadkii markii aniga macruufka ay ahaa oo ii keena ii sheegeen bay ahaayeen. cid kasta cajal maqal iyo muuqaal balaa iga buuxsatay ilaa iyo 8 sano meelahaas weeye. sanadkii hadda balanballe aniga iigu horreyso la ii keenay, sanadkii ku xigay bay arrintaas bilaabatay. war dambe wax igu soo celiya ama waxtar ii geystana ma ay jiraanin oo laba kulmin. maxaad marka hadda baaq u dirsan lahayd jaaliyada ama dadka deegaanka ee qurbaha ku nool oo codsi aad u gudbisan lahayd? waxaan u gudbin lahaa wixii ama hadda jaaliyad Soomaaliyeed ah ama shakhsiyaad muhiim ah ama haatan aniga waxaas oo aan ku taxalluqa ay xanuujinayaan. ilaahay dartii ninka sidaas waxa u qabaanahay. wixii nin dhibaana mujtamac ma dhibaan baa la yiri. inay aqoontooda iyo anfac waxa ay haystaanba ay wax iigu qabtaan xag caafimaad iyo xag nololeed intaba. intaas ayaan fari lahaa.